الشباب ما هنية ضربوا شباب كبح وعواي اسكم ملك كنيسة يا شباب كنت إلى الشيران ربع نبى شباب كسو حرونا وابا تليبا مع الصلاة dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyin aad u weyn u geystay niisa institutionka niisa la yiraahdo sida ay u dhisan tahay khataraha ugu waaweyn ee ka hortagto argagixisada gaar ahaan al-shabaab masalan xiriir weyn uu leeyahay muddo dheer oo 8 sano 10 sano ku dhow guda maxad salaad oo eedayn u soo jeediyay dawladdii maxamed Abdullaahi Farmaajo xilligeedii ku eedaynay hay'adda nabad sugidda waqtigaas sida ay al-shabaab isu dhex galeen nin la yiraahdo Shakiib ayuu leeyahay u soo qaatay mitaal oo la soo qabtay xog lagu soo qabtay inuu soo dhiibin mas'uul ay ka dhigtay dawladdii maxamed Abdullaahi Farmaajo bal ila fiirso madaas waxaa watay nin la yiraahdo Shakiib oo shabaab hore u ahaan jiray isagoo dhaawac ah oo dagaalamaya ayaa laga soo qabtay suuqa Bakaaraha waxaana lagu xiray xabsiga dhexe kadibna waxaa loo sii gudbiyay Sarandi oo lagu xiro dadka dambiilayaasha ee iska soo dhiiba shabaab ama ayagoo dagaalamaya la qabto halkaas ayaa laga soo saaray kadibna waxaa loo qaatay inuu ka mid noqdo ciidamada nabad sugidda wuxuu shabaab u qaabilsanaan jiray dilalka qorshaysan ee dadka mas'uuliyiinta lagu laabo Shakiib oo taliyaha nabad sugidda waqtigaas uu ku eedeynay inuu yahay al-shabaab markii uu taliyuhu xilka la wareegay dawladdii maxamed Abdullaahi Farmaajo dhacday Xasan Sheekh Maxamuud oo mas'uuliyadda qabsaday oo mahad salaad laga dhigay taliyaha nabad sugidda waa dalacsiyay oo ka dhigay gaashaanle darajadiisuna koray u socotay mas'uuliyaddiisuna koray u socotay maanta wuxuu xukumaa ilaa taliye qaybeed weeyaan 4 degmo oo xamar ka mid ayaa hoos yimaada asaga waxay Shakiib waxay intaas dheer magacyadooda hadda inaan sheego marra 3 taliye kale oo ayadana mas'uuliyad ugu sarreysa haya hay'adda haddii noqoto xuuraanka haddii noqoto amniga haddii noqoto taliyaasha qaybaha ugu weyn ka haya qaarkood shabaab ay ahaayeen ISA soo noqdeen Daesh ay galeen way soo laabteen shabaab ay ku soo laabteen haddana isla markii wada lacsiyay wuxuu u dhiibay meelaha ugu sarreysa hay'adda shirqoolkii lagu eedeeyay tali mahad salaad asagoo lagu eedeeyay inuu yahay xogana laga hayo shaqaynta al-shabaab una shaqeeyaba usana shaqeyn u shaqo shaqaalada xamar ku soo degay xamar waa ku baashaa wax alla wuxuu rabo qabsaday danihiisu gaaray qof waa nin muwaadin Soomaaliya oo mas'uul siyaasi oo waliba level sare ka jiro haddii waxa fahad oo ka sheegay mahad ay been yihiin maxaa dhici lahaa ii sheegay maxaa dhici lahaa hatta haddii fahad soo ag maray mahad salaad oo Xasan Sheekh iyo oo jaranjartaas ku yimid automatically mahad wuxuu ka sameeyay lahaa ficil ka sameeyay lahaa wuxuu ka hor imaan lahaa imaashaha Fahad Yaasin Xamar hadduu yimaadana dhaqdhaqaaq uu ka sameeyay sax waay mali inuu ka sameeyo laakiin wuxuu jeedaa sida caadiga ay wax u dhacaan wuxuu sameeyay lahaa inaad arki lahaydeen mahad oo Fahad Yaasin ku dhigay kuma uusan dhigin sababtoo taqaan because Fahad wuxuu hayaa cadeymo waana uu sheegay cadeymaha wuxuu hayaa xaqiiqo ku qotonta waxa mahad salaadiya ujeedka aan kale ayaa waxay tahay in eedeymaha soo loo soo jeediyo haddana xamar lala joogo waxay marqaati ka tahay inay jirto cadeymo aan mahad dhinac uga gafaanayo waxaad ogtahay maanta waxa la yiraahdo Jeffrey Epstein oo Mareykan ah jasiirad oo tumasho tago mas'uul inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wallahi musiibo waxaa meesha mas'uuliyadda inoo hayo oo madax inoo ah oo laga sugayaa wadanka inay maaragtay wax ka bedelaan dhinaca amniga iyo dhinaca siyaasadda iyo dhinac walbaba dabaqada siyaasadda iyo nimankan horbooda hayo madaxda lagu sheego iyo 99%
ونوعس وضد maaragtay gacan ku dhiglayaal leh mujrimiin ah marka ayaga hoggaan laga sugayaa inay wadanka meesha dhibka ka bixiyaan maaragtay marka dabaqadaas maaragtay in laga takhaluso maahan oo shacbiga tashto oo maaragtay shacbiga ka soo dhaxbaxaan xubno wadaniyiin oo wanaagsan dadka Soomaalida 90% dad wanaagsan u badan yihiin haddii arrimaha qabiilka iyo maaragtay laga saaro dad wanaagsan waa laga helayaa oo maaragtay ku fiican xagga hoggaanka ah laakiin waxa meesha buuxo oo horboodahayo oo arrimaha qabiilada isticmaalahayo ximiyada qabiilada iyo maaragtay jagada ku gaarahay dad aan u qalmin dhinac walbo oo ninkan la sheegahay ka mid ah mahad salaad waxaas eedeema loo soo jeediyay iyo waxaas cadeema laga hayo inuu ummadda Soomaalida dhibaato u geystay inuu nimankaas shaqaale u yahay haddana uu joogo hay'adda ugu sarreyso xagga amniga ninkan madaxda meesha kursiga madaxda ku fadhiya Xasan Sheekh oo laba mar meesha keenay oo talada amniga u dhiibay wallahi waa wax la yaab wax lagu fasiraan kulli ma aqaano niman qaribana meesha haysto iyo niman tala xumo ugu sarreeya madaxweyne ku sheegaan meesha joogo marka waxa way Soomaali inay tashato maaragtay wacyiga laga shaqeeyo waa la xaqi karaa nimankan awoodda sheeganayo madaxda haddii ummadda ay israacdo waxaa tilmaam inoo markii maxkamadaha dhaqdhaqaaqi maxkamadaha bilowdeen nimanka awoodda waqtigaas haystay oo ku dhagar farahayay umaraa xarbiga lagu sheego qabqablayaasha dagaalka si ay maalmo gudaheeda u carareen shacbi midaysan hadduu ku hor yimaado waa tirtirahayaa marka tilmaamo waa jiraan laakiin dadkii sidee loo midayn lahaa waxaa laga rabaa waxgaradka culamaa diinka dadka khibrad u leh arrimahaas macallimiinta jaamacadaha dugsiyada sare waxaasoo dhan in maaragtay khibradahaas la isku darsado oo laga soo saaro hogaamiyayaal wadaniyiin aan dabadal laga xukumin ama xag maal ama xag dhinac walba aan fare laga hayn ay argagixiso la shaqeyn gacan saar la lahayn hogaamiye wadaniyiin oo amniga wadanka iyo dadka u daneynahay ka shaqeynahay waana la soo saari karaa المهم waxa weeye wacyiga in laga shaqeeyo oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay wada tashtaan marka insha Allah waa la gaarayaa maalintii ahaataba inay dhawaataan jeclaan lahaa insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh